shirkii magaalada Jabuuti uga furmay dalalka Somaliland iyo Soomaaliya isla markaana ay dhexdhexaadinayeen dawladaha Mareykanka, Midowga Yurub, Itoobiya iyo Jabuuti ayaa wararka ka soo baxaya ay sheegayaan shirkaasi in lagu kala kacay. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo bandhigay laba qodob oo ah in ajandaha lagu daro kuwaas oo kala ah aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland iyo qodobka labaad oo ah in dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaalidu ay ka garaabaan waxyaabihii ka dhacay xilligii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ay u geysatay gobolada waqooyi gaar ahaan xasuuqyadii iyo waxyaabihii la midka ahaa. Haddaba inta aynaanu gelin shirkaas iyo siduu u bilaabmay bal aynu yara daawano furitaankii shirka iyo hadaladii iyo soo dhoweyntii halkaasi ka dhacday. Kaladan korfeeyo inaan gaaro faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin kaladan korfeeyo inaan gaaro faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin shirka waxaa furay oo ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo halkaas ka akhriyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa qayb ka mid ah hadalkiisa waxa uu yidhi sida aan wada ogsoonahay maalmo hadda laga bilaabo ayaa xusi doonta sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii uu dhammaaday xukunkii gumaystaha ee dhulalka Soomaalidu degto halkan kadib 30 sano ee la soo dhaafay waqtiga dib dhalashada ayaa hadda ah runtii qarnigan cusub ee dhalinta yari kuma curanayo shaqaaqadii hore waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa ku haboon in wax la dhiso. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa isagu si weyn uga hadlay sida ay muhiim u tahay in mar walba wada hadalladu ay sii socdaan. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxa kaloo shirkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Ahmed. shirka waxa iyana lagu casuumay hadal la siiyay ambassadorka dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto. waxa kaloo isna halkaasi ka hadlay wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Bergini. Suuliyiinta ka hadashay ee xafladaasi lagu casuumay ama kulankaasi lagu casuumay waxa isna ka mid ahaa xogayaha guud ee ururka IGAD urur goboleedka ay dalalka bariga Afrika ay leeyihiin Gabayaahu. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo shirkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa oo ganacsi ah ayaa ku dheeraaday taariikhda faca weyn ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladnimadeeda waxaanu si cad u qeexay dimuqraadiyadda buuxda iyo hanaanka dawladnimo ee daahfuran ee ay ku caanamaashay Somaliland nabadda iyo xasilloonida ay ku naaloonayaan shacabka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dib ula soo noqoshada gobonimadii halowday 60kii oo ay haatan dib ula soo noqoshadeeda laga joogo muddo ku dhow 30 sano. madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay kana sheegay shirka ay maanta isugu yimaadeen madaxda dalalka geeska Afrika iyo ufuudda kale ee dunida kale ka socotay in qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu muddo sanad ah u soo dhabar adeegay in marun ay beesha caalamka iyo Afrikaba ay garowsadaan horumarka iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday Jamhuuriyadda Somaliland in badanna ay u dhagtaagaysay inay maqasho waxa ay shacbiga Somaliland ka mudan yihiin adduunka kale xaqna ay u leedahay oo ay tahay aqoonsi buuxa muddo badan ay sugaysay madal sidan oo kale u furan ay garteed iyo xuquuqdeeda ku sheegato. ugu dambeyntii madaxweynayaasha dalalka Jamhuuriyadda Somaliland Soomaaliya Jabuuti iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay xarunta madaxtooyada dalka Jabuuti si wada jira ugu beereen geed loogu magac daray geedka nabadda ee geeska Afrika.